warbixinta noo soo dirtay waxaa maanta magaalada Muqdisho si rasmi ah uga furmay shirweynaha dib u heshiisiinta ee loo qabanayo dadka wada deegaanada gobolada Jubooyinka waxaana furitaanka shirkan ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xubno ka mid ah golihiisa wasiirada iyo hogaamiyaha maamulka ku meel gaarka ee Jubba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo wakiilo ka socday qaramada midoobe iyo midowga Afrika. shirkan ayaa suugaan looga hadlayo midnimada iyo qiimaha ay leedahay waxa ku soo bandhigay hobalada waa bari ee qaranka. ra'iisul wasaare Saacid oo shirkan furay ayaa sheegay in dawladda federaalka ay ballan qaadayso in ay gacan ka geysato sidii loo heli lahaa dib u heshiisiin dhab ah oo loo dhan yahay. waxaan idinka codsanayaa idinna soo jeedinayaa dhammaantiin in dawladda federaalka Soomaaliya lagu garab istaago sidii fursadaha Soomaaliya maanta u taagani aysan u dhumi lahayn. waxa weeye waa mas'uuliyad qaran, waa mas'uuliyad aan ku ekayn hal dhinac, dhab ahaantiina aysan fulin karin hal dhinac. aad baa ummadda Soomaaliyeed munaasabadan ayada ah waxaan si buuxda uga codsanayaa in loo midoobo fursadda maanta dagatay bilowgeediina aynu hadda u taaganahay. haddii muddo gaaban gudahood oo 2 sano iyo ka yar haddii alla idma ay soo baxdo Jubbaland waxaa soo bixi kara nooca federaalka iyo sida dadku u jecel yahay inay tashadaan meel ay joogaan. taas waa garab taaganahay sidaan maanta ugu taaganahay mustaqbalka Jubbaland yaan mid walba oo talada Soomaaliya ku timaada ugu taagnaan doonaa. fursadaas waa kula ballamahayaa dhammaan Soomaaliya waana ka codsanayaa idinkana xil gaara yaa wuxuu idinka saaran yahay inaad dhigtaan tusaale lagu daydo. shirkan ayaa waxa khudbado kala duwan ka soo jeediyay wakiilo ka socday midowga Afrika iyo qaramada midoobe oo taageero buuxda u muujiyay shirka dib u heshiisiinta ee loo qabanayo dadka wada deegaanada gobolada Jubooyinka. waxa sidoo kale shirka ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo tilmaamay in shirkan uu qayb ka yahay fulinta heshiiskii Addis Ababa ay ku wada gaareen dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka ku meel gaarka ee Jubba. hogaamiyaha maamulka ku meel gaarka ee Jubba Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo shirka ka hadlay ayaa ku dhawaaqay baaq nabadeed waxaana uu ka codsaday ergooyinka shirka ka soo qayb galayay in ay isku raacaan heshiis loo dhan yahay. waxaan tahay hadayna geesinimo la iman geesinimo ma ahayn xabada lido waatiin waxaan loo maagaagay waxaan idin rajaynayaa shirkaani uu guuri loogu dhammaan doono inagoo hal tiim aan ka bixi doono. ma doonayno inaan tiiman badan kaga baxno. Adhisaabo 2 tiim baanu ku tagnay waana 1 tiim baanu kaga nimid. waxaan u baahanahay inaan geesinimo qaado. geesigu ma aha ninka qoriga qaatay ee dagaalama inaad nabad qaadataa ka geesi. waxaa geesinimo adigoo hadalla badan lagu leeyahay, adigoo alfaab badan lagugu tuurayo, adoo laga yaaba reerkiin inay leeyihiin qadiyadda nadaad iibsatay, adigoo laga yaaba qabiil inuu wax kale kaa sheego inaad waddo adag qaado si aad nabad u gaadho iyadana aad ku bedelato geesina aad ku noqoto nabad dhab inaad qaadato. dhanka kale waxaa shirka khudbad ka jeediyay Cabdi Shire Warsame oo ah wakiilka madaxweynayaashii horay ugu dhawaaqay inay madax ka yihiin maamulka Jubbaland waxaana uu sheegay in heshiiskan ay ka rajeynayaan in ay ka soo baxaan qodobo miro dhal ah. xusuusta hal ma gaaro waa murti Soomaaliyeed oo lagu boobinaysa inaan dhanka wanaagsan wax ka eegno oo aan ahaano kuwa horay uga sii dhaqaaqa halka la joogo balse